laakiin tiirka ganacsiga ayaa hakadu ku yimi oo ganacsigan wuxuu aad iyo aad ugu xidhnaa ganacsiga wajaale mari jiray ganacsigaas imka runtii hakadu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa guddida dhaqaalaha ee golaha wakiilada iyadoo gudanaysa xilkeeda ayaa waxay nagu marti qaaday iswaraysi inaanu isugu nimaado kulan iswaraysi kulankaas waraysi si wanaagsan noogu dhacay nuxurkiisuna waa inaan iska waraysanno xaaladda dhaqaale waxaana iska weydiino arrimaha miisaaniyadda 2024 marka waanu xog warranay runtii si fiican arrinkaas uu noogu dhacay haddaan wax yar ka yaraado xagga dhaqaalaha Soomaaliland laba tiir buu ku dhisan yahay tiirna waa tiirka xoolaha tiirna waa tiirka ganacsiga tiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadkan 2023 alxamdulillaah xoolaheenu roob badan oo noo daay gugii xooluhuna way noo caafimaad qabaan xoolo badanna way naga dhoofeen laakiin tiirka ganacsiga ayaa hakadu ku yimi oo ganacsigan wuxuu aad iyo aad ugu xidhnaa ganacsiga wajaale mari jiray ganacsigaas imka runtii hakadu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa marka xagga ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxay nagu yimi waxooga yaroo hoos u dhaca xagga miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa lama dhammaynin laakiin waxaan isla garanay xagga arrimaha maase inoogu mudan waxyaabaha inoogu mudan insha allah sanadkan sanadka soo socda mudnaan doona waxaa ka mid ah difaaca qaranka ayaa ka mid noqon doona ida laftigeeda dee doorashana waynu diyaar garoobeynaa sanadka soo socda isaga laftigiisu dee mudnaantiisa ayuu leeyahay waxay noo soo raacay wixii kale la xiriira adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka aad bay u mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan saaka halkan kulan ku yeeshay wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo guddida dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga kulankaas wuxuu daaraa wada shaqayntii joogtada ahayd ee ka dhaxaysay wasaaradda iyo guddida waxaa runtii wasiirka ay saaka guddida ugu yeedhay ama ay iska waraysteen xaaladda guud ee dhaqaale ee dalka iyo wada shaqayntii iyo arrimaha dhaqaale ay ka wada shaqeeyaan ee miisaaniyadaha soo socda iyo miisaaniyaddii horeba warbixin waafi runtiina siiyaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wasaaradda maaliyadda dadaalka dheereeriga ay ku jirto iyo warbixinta runtii joogtada ay guddida dhaqaalaha ay siiso warbixintuna saaka waxay daarareen kulamadii caadiga ahaa ee ka dhaxan jiray guddida iyo wasaaradda aad iyo aad u mahadsantihiin